su-aasha xigta waa barnaamijka qoyska weeyaan marka su-aalaha qoyskana sida xalay aan soo bilayno sheekh dabiix baa iska leh xalay kugu soo bilaabatay caawanada isku yar baarbaaray masaladan caawada laandheer iyo laangaab ka hadlay ninkan wuxuu leeyahay gabadha haddii la igu diido laangaab baa tahay ma iskala baxsan karaa reerkiina yar reerkiina isma guursano hawlo saa haddii gabadha la igu diido ma isla baxsan karaa dhacdooyin Soomaaliya ka dhacay oo hadda mar dhow dhacay baa su'aalooyinka qaar badan ku soo laablaabtay oo ah midabta koorka qofka reerka uu ka dhashay in wax loogu diido ama lagu colaadiyo radul ficligiisa marka gabadhii ma guursan karaa maxkamad la'aan oo maxkamad ma la aadi karaa bismillaahir rahmaanir rahiim awalan ogaada waxaa jira waxay culimada horta ka hadlaan oo leedahay kuf marka taas inaan isku badaalin waxa weeye waxaan isleeyahay masaladan hadda laga hadlayaa wax khuseeya maaha in badan waa cudur mujtamaca ku jira weeye cudur weeye mar aha cudur innaga keliya ina ku gaara haddaad marto caalamul islaami in badan buu ka jiraa meelo badan buu ka jiraa sideenna tarkiibadeenna qabaliga ah yaman baan mar tegey qabaa'ilku xataa xoolaha gabadha laga bixinaya waa kala qaalisan yihiin dabaqaad bay leeyihiin reer hebel gabdhahoodu dabaqada intaasa xoola intaa leeg ugu yaraan iyo wixii ka sarreeyaa laga bixin karaa reer hebel xoola intaa ugu yaraan ilaa iyo ka kora waa laga bixin karaa reer hebel xoogaa dabaqad ka soo hoostay wahaakada waa cudur jira wey laakiinse waxaa xaqiiqo ah ibnu aadam xaggee ka yimi ibnu aadam wuxuu ka yimi dhammaanba dadku waxay ka yimaadeen aadam ama ha caddaado ama ha madoobaado ama ha timaadkaado ama ha tirna jilacsanaado ama waxa weeye ha dheeraado ama ha gaabnaado ama afrikaan ha noqdo ama eshiyaan ha noqdo ama yurubiyaan ha noqdo dadku waxay ka wada yimaadeen aadam waa calaama ku tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa inay dadka midabadooda dadka waxa weeye kalarkooda dadka carabadoodu inay kala duwan yihiin waa calaamad ku tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa waxaa soo hartay marka qofka ma loogu diidi karaa reer hebel inuu yahay reer hebel hadday muslimiin yihiin oo dadka muslimiinta ka mid yihiin xaq bay u leeyihiin in loona guuriyo lagana guursado xaq bay u leeyihiin reer hebel baa tahay qofka wax looguma diidi karo reer hebel haddii ay yihiin haddee dad aan muslimiin ahayn hadday yihiin sax waa loo diidayaa gabadha muslimiin ma ahidin haddii ay yihiin maalan dad caqiide xun innagu dad sunniyiin ahlusunna waljamaaca isagiina ninkanuna waxa weeye reerkiisu iyo isaguba waa shiico weeye waan u diidaynaa gabadha waxayna waa fasaadinayaa haddii ninkanu uu yahay nin dhaqan ahaan u liita dhaqan ahaan buu liitaa waaba heesaa weeye heesaagii baa gabadha kaa soo doonay heesaagii baa gabadha kaa soo doonay hadeerte gabadha ku siin maayaa ku filan gabadha waa loo diidi karaa ninka laakiinse wax sababta loogu diidayaa waa inay tahay sabab sharciya nebigu sal alla alay slam wuxuu leeyahay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh ninka waxaa laga fiirinayaa gabadha markuu soo doono diinta iyo akhlaaqda labadaasun baa laga fiirinaya hadduu yahay duu diinin qof diin leh oo diintiisa ku toosan oo diintiisu wanaagsan tahay oo cibaadadiisu wanaagsan tahay oo akhlaaqdiisuna wanaagsan tahay khuluqdu maxay tahay waa dhaqanka wanaagsan masalan ninka haddii lagu ogaaday horey buu u soo guursaday ama dadka dhaqankiisa horeba wuxuu ahaa nin bilaa akhlaaqahoo cayb badan oo wasakh badan oo dilaayahoo inkaar qaba ah mujtamacaba ka sheegan de kaasoo kalena gabadha la siin maayo maxaa yeelay soo berri iyadana dili maayo
kaasoo kale gabadh la siin maayo nebigu waxau ku xiray gabadha in ninka loo diido idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah diintiisa iyo akhlaaqdiisa fazawijuu bali haddii kale meesha fitna ka dhalanaysa waxaa soo haray gabadhii hadda mujtamacii waxa weeye waa fasahaadsan yahay gabadhii waa lagu diiday ma la carari karaa gabadhii ma la carari karta alla cararta xaggee la aadaysaa su-aasha soo diinta leh ma la carari karaa meesha haddii dowlad islaamihi joogto hadday dowlad islaamihi jirto oo qof walba xaqiisa siinaysa gabadhan iyo wiilkan hadday soo gol yihiin ninkaana wax cilada oo sharciga oo loogu diiday aysan jirin oo waalidku u diido xaq wuxuu leeyahay wiilku inuu u tago madaxweynaha ama dadka magaalada naa'ibka uga ah isagaana siinaya isu meherinaya laakiin aad la carartay xaggee la aadaysaa adigu aabbihii dhalay gabadha kala carartay oo reerkoodii kala carartay oo ninkii kuu meherin lahaayo madaxweynaha lama aadin oo kii isaga wakiilka uga ahaa magaalada oo barasaabka lama aadin oo xaggee la aaday tee duurka rabta in wax ku biyaysa soo maaha taasu ma bannaana cararka noocaas gabadha in la cararaho duurka meel aan sharci jirin lala aado gabadha waxaa la rabaa inay sharci ah ku heshaa la rabaa in lala aado ma bannaana labo fasahaadka ka dhalanaya sheekh inaad fiiriso weye hadda xaadidka inuu ku dambeeyo dad ka warramayaan maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay in intaas oo qofna maanta xabsiyada jiifaan allaha u naxariiste waxa weeye nafna lagu jaray bal si foolxunna loo jaray bal aan qof muslima munaasib ku ahayn adiga nafsadada waxaa la rabaa waxaa raadinayso iyo waxa dhalan doona cawaaqibta inay isu miisaantaa la rabaa hadday ka dhalanayso in adigaba lagu dilo hadda ma faa'iida mise waa khasaarta waxaad helaysaa mid raalli lagaaga yahay oo lagu ogol yahay oo midaan ka khayr badan oo kaaga baraka badnaanaysa oo ka awlaad fiicnaanaysa baa ilaahay ku siinayaae adeegoo mid lagu ogol yahay marka doono waxaa soo haray cudurka mujtamaca ku jira daawi u baahan yahay sax cudur baa jira waa cudur maaha wax saxa maaha ilaa qofka reer reer baata gabar lagu siin maayo wax saxa maaha cudurkaasu daaweyn buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay culimmadu inay daaweeyaan wuxuu u baahan yahay in mujtamacu loo daaweeyo si caqli ah waana soo baaba'aya anuu intaas leeyahay waa soo socdaa laakiinse kooba waxaa laga rabaa dadku inay marka hore iyagu qabaa'il kala takooraya inay dhaqan ahaan iswanaajiyaan isqurxiyaan maxay tahay dadka ama hadda waxaan ogahay dad badan oo dadkii la takoori jiray ahaa oo meelahaan ka yimi lagana guursado loola guuriyo laga guursado loo guuriyaa waa badan yihiin gabdhaha markii soo daro waa la siiyaa marka waxay ku xiran tahay qofkaanu isaga nafsadiisu haddii ay jirto cudur lagu takoorayo inuu cudurka iska tirtiro maalan dad ba waxaa lagu ogaaday gebigoodaba dhaqan xumo iyo faasiqnimo sheekh haddii lagugu diido reerkiinaas waxbaa laga dhexgeli karaba faasiqnimaa laydin dhexgeli caqiida xumaa laydin dhexgeli karin waa sharci weeye marka haddii socialka ay ku jiraan cudurro laakiinse waxaan ogahay ummadeenna inta badan cudurkaasu dee cudurkan faasiqnimada reer walba ku jira waxaa dhici karta mid saalixa inta loo diido mid faasiqa in la siiyo gabadhii marka shaygaas shay bannaan maaha waxaan marka leeyahay insha allahu tacaala cudurkaana hala daaweeyo oo mujtamacu ha daaweeyo oo culimmadu ha daaweeyaan oo waxaa laga gudbo inta laga gudbayana daawada hadda waxa weeye hal mar xanuunku hal mar daawadiisa mar lama wada hele waa la tallaabsanayaa ee tallaabada lala qaado jazakum allah khayr waqtiga aad noo haya su-aasha ugu dambaysa lama rabi laakiin hal baan ka dhigaya waqtigayna haya nadwada inaan gunaanadnaan rabnaa khatikii marka nadwadaan rabnaa inaan samayn su-aasha ugu dambaysa insha allah sheekh saan bay ku socotaa waxay leedahay sheekh nin hadduu nabinimo sheegto ama uu caayo xukunkiisu waa maxay ummadda muslimiinta ah maxaa mas-uuliyadoo ka saaran ani shakhsi ahaan laakiin maxaa iga saaran qofkaas nabinimuu sheegtay ama nabiguu caayay xukunkiisu muxuu yahay ummadda maxaa ka saaran anigana khaas ahaan maxaa iga saaran xukunka qofka nabi sheegta waa gaalnimo
وأنا كل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري قراشي وحا هان دونا صدا كذاب وبين شيء ونبي مشي هان دونا حلو وحلي تاس مرك الله فيري ضد كان من هذا شيكتي صدا وكبديهين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا كيس هو صحيح وكسر حديث كاس سلا سوا في الجنيه ضد كان من هذا شيكتي نبي قراشي صدا وكبديه نبينا نروح شيء قراشي وحا صبح دونا صدا كذاب ونبي مشي هان دونا وحسوا فقط بين العلماء صدنك نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم مركل التريو انت نبي ما شيغتي وصدنك اتباع يا قوه يحوق مركا حتى منع اسكو دفاعان كما بنان الا قيم الساعه اللي قاريه لكن dadka sheegtay nabinimada waxa weeye way ka banaan karaan soddon laakiin marka nabigu sheegay saas uu wadaa saasina marka is waafaqaysa isma diidayso taas ka baa intaas ka bacdi qofkii nabinimada sheegtay xukunkiisu waa gaalnimo uu gaaloobaya عقابتيسنا دل مويه wax kale maaha laakiin adiga maxaa ka saaran shakhsiyan adiga xagaaga Allah ma qofku toobad kan war furiyo toobad kan waa mashada laakiin المساس اللي هو دل معناه هو يحد كغفك لوجيه adiga waxa ka saaran adigu hadii dawlad ma tahay illa qoyn ugu sharaacida iyo xuduudda dawladda iska leh marka adiga hadii sulda tahay in awood saaxiiba waxa lagu doortay waa nooca qofka suldaanka ee muslimiintu wax ka dhigteen shayga ugu horeeyay waa maxay waa diin marka qofka diinta fasaadinaya ninka suldaanka ahi waa waxa loo doortay ko ugu horeeyay inuu qabtaa sharcigu waxa uu markaa ku xukuman oo markaa ku fuliya laakiin hadaa miskiin tahay waran la oo waxba aan macna adiga weeli karinin xaq ina cadayso iyo bayanka laga raba وتهدى الشيخ شيء إني مفسدة كبر خدرته سو ما دعك ترتمين كجودة تورس كجيسو وتراوني وشيخ توه فساد بين بعض معايا لدين الإسلام المصالح والمعنى والمفاسد ولا كل رجحي ولا كل فيرنية بركة قفكي دين هذا الشيخ تأذيه بعد المديسة إن هذا عديسه تذكر ودكته أول هذا ولا تاس على جربا لكن هذا السلطة هين يأود أود مركة وهي قفك كان ظلم قاعد كجبد شو وهو يعني أرنك عليه كمية النبي يسورنا إياه من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مركب مراتب تاسولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أدوات اللي إلى المنكر كجعنك سيرسه فذاك وسيد الربي وأنا السلطة عارفين أسكله سلامي إلهين هذا الأول كان جعنتي عرفك كسولي منكر كهذا الشيء هذا الأول كان حتى أنا أعرف كشيء قلبي مركا كنع مركا أذيك واحد لقاه وكلية حسب استطاعة وحي قفك أتكأود هذا أنت يكون شوكته إن مركا قفك أود كقوة ما دام مراتب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدق هاي كأذيك أود الله هاي إن قعنك قبدش هذا أود الله هاي إن مارك أفك كعد صدق أود الله هاي هذا أود الله مر بقلبك أنا كنع والله غير ربع مركا حكمك مسواسي ساسي نغنسا والله أعلم